inkastoo weli qaybo ka mid ah dalka ay ka jirto abaarta lafagaarta ah ee dad iyo duunyo saamaysay haddana ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa maanta waxay mar kale gurmad u sameeyeen shacabka militariga Soomaaliya gaar ahaan ururka 86 ee guutada 77 oo ay weheliyaan maamulka degmada Ceeldheer ayaa gurmad mar kale gaarsiiyay qaar ka tirsan bulshada ku nool aagaga degmada Ceeldheer kuwaas oo abaartu ay saamaysay deeqdan ayaa isugu jirtay raashinka qeybaha kala duwan sidoo kalena waxaa sii raacay biyo dhaaminta waxayna ahayd mid ka timid ciidanka dhexdeeda garaamkii ay lahaayeen ciidanka si gaar ah ururka 86 ee guutada 77 ayay go'aansadeen inay iska jaraan kadibna ay gaarsiiyaan qaarkood bulshada abaartu ay saamaysay kuwaas oo ku dhaqan aagaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud guutada 77 si gaar ah ururka 86 ayaa muddooyinkii u dambeeyay biyo dhaamin ka waday aagaga degmada Ceeldheer waxaana xusid mudan in maanta raashin iyo biyo dhaamin mar kale ay ka sameeyeen goobaha ka agdhow degmadan